السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مدنيال يا مروين كسو دواذا وهربد كسو هيرو هربد هيغا تابرك انجينير هذا مستقبل كبر علمي كمبيوتر goob kasta iyo goor kastood ka heli karto internet iyo aaladaad wax ku barato adoo booqanaya hurbad.com wama adraaka hurbad waa madal waxbarasho ee laga barto cilmiga IT-ga qaybihiisa kala duwan ee lagugu barayo laguguna hagarbaxayo luqadda afka hooye af Soomaaliga afqalaad aqoontu ma libaxad waa barnaamijkeeni tixanaha tiknoolajiyada ee maraya qaybtiisii kontonaad TT ama tixanaha tiknoolajiyada waa barnaamij ka soo gala jimco walba madasha YouTube-ka hurbad ee aan ku falanqayno tiknoolajiyada iyo dunidan daalacdo deegaanada digitalka degtay waliba ama libaxad qaybtan waxaan rabaa inaan ku falanqeeyo wax saameyn si toos ah iyo si dadbanba naftaada ugu leh ee maalin walba aadan ku baraarugsanayn ama aad ku baraarugsantaaba waxaasi waa algorithm maxaad kala socotaa wax walba ee maanta online ku jira ama app walba ee shirkadi samaysatay ama adeeg walba ee shirkadi leedahay waxay ku maamulaan waa algorithm iyo logic algorithmka haddaad ogtahay iyo haddii kalaba waa xisaab iyo tilmaamo qoran ee tilaabo leh ee lagu maamulayo dabeecadahaaga akhlaaqdaada sidaad u dhaqmayso waxyaabaha lagugula talinayo iyo sidaad u fakarayso dunidii hadda waxay noqotay deegaan digitaala ee qof walba iyo waxa uu sameeyo raac lagu samayn karo online-ka algorithmka awood wuxuu u leeyahay inuu xataa ogaado dabeecadaada maanta sida ay tahay iyo waxyaabaha jeclaan lahayd inaad daawato asagoo ku salaynaya saaxiibada waxa ay daawadeen maanta dunidii waxay noqotay mid dadkii ay noqdeen kuwa maanguracan ee maskaxdoodii ay u isticmaalaan waxyaabaha kombiyuutarku raba kaliya inay sameeyaan ma ogtahay ababka social mediaha sida TikTok YouTube Facebook Instagram Snapchat LinkedIn kulligood isku soo wada duub iyo Twitter waxay adeegsadaan algorithm si ay u maamulaan waxa lagu tusayo iyo waxa laga asturayo intaba waxa ay ka dheehayaan oo isugu ogoleen dhaayahaaga inay ku dhacaan iyo waxa ay doonayaan in dhaayahaaga ku dhacaan waa mid ay ku saleeyeen mathematical formula ama algorithm adiguna waa hurdaa waxaad ku leedahay anigu waxaan rabaa xal inaan seexdo 3 saaco anoo waxaan is arkay TikTok ilaa iyo 5 saaco habeenimo flick swap up down kor aad bidix ka dhow midi ka dhow adoo ku jira ayaad is aragtay maxaa keenay maxaa yeelay waxa la ogaaday dabeecadaada ayaa la bartay hab dhaqankaaga ayaa la bartay fiidiyoyada aad ku hakato ayaa la bartay marka ayaa waxa lagu keenay kuwa adiga lagu soo talay ma maqashay qofka waxa loo soo diray xayeysiin asaga loo tolay sida shartiga aad u geysato ama diraca aad harqaanka u geysato kale libax ayaa waxa lagu sameeynaya tailored advertisement ama xayeysiin adiga lagu tolo kaliya waxaad ogtahay male you are the product adiga ayaa waxa tahay agabka la iibinayo oo agabka la iibinaya maxay tahay leedahay anigu maxaan ahay miskiin ilaahay ee dhuusam reeb jooge ilaahay amarkiis war libax waxa aad tahay productiga dunidan ganacsigu wuxuu ku shaqeeyaa waa xayeysiin dhaayahaaga kaamirada kugu taalee labadan indhood ah ee kuwan hadda okiyaha ku jira libaxan dhukuran oo wato maaha ay waa kuwa ku yaala qof walba online ah sababta loo siinayo account-ka free-ga waa maxay sababta xogtiisa loogu kaydsanaya waa maxay platform-ka waxa la rabaa in loo soo diro xayeysiin si jeebkiisa lacagta ku jirta ama waqtigiisa in qayb kamid ah laga qaato waqtigaagii waa lagu cayaaray dhaqaalahaagii waa lagu cayaaray ma is ogid adigu waad maan guracantahay mana ogid libaxad maxaa yeelay maba fakaraysidba maskaxdaadii waxa la siiyay sleeping pill ama waxa la siiyay kaniinigii hurdada markaas algorithmka wuxuu ku baashaalayaa ama waxa uu sidii biyaano camal oo ugu cayaaraya waa dabeecadaadii waa waqtigaagii waa noloshaadii waa wax walba go'aamahayd gaarayso iyo wax walba ka faaloonayso marka waxaad is leedahay war waxaan aniga maana rabin inaan daawade sidoo ku ogaata YouTube in ay ugu la talido inaan daawado heestan ugu dambeeyay ama shactiradan ugu dambeeyay ama libaxa YouTube-ka videogiisa ugu dambeeyay sababta keenta waxay tahay algorithmka ayaa wuxuu qiyaasay xisaab ah saaxiibkiis hadduu ka bixiyo faalahaas hadduu ka helaya hadduusan ka helinba inta kooxay asaga ku xiran ku salee kadibna waxaad asaga tustaa waxa uu daawo doono adoo ku salaynaya go'aamadii hore uu sameeyay ilaahay amarkiis libaxad waa runtii af Soomaali iska kooban balse algorithmku wuxuu ku saleeyaa waxyaabaha ay sameeyaan dadka adiga kula siman oo asaaga ah adiguna waxa aad hore u sameeyday
waxaad fashayba fashaye wa in faatakum libaax hadday kaa tagtay dib baa lagugu soo celinayaa haddaad hore u daawato muuqaalkan sanad ka hor dib baa lagugu soo celinayaa maxaa yeelay algorithm ayaa shaqaysanaya maaha qof bini aadana waxaad isdhihi kartaa war youtube ku caqli badana sidoo ku ogaada hadda ka hor inaan raadi jiray videogan war libaaxi inaan raadi jiray war inaan raadi jiray hebel maaha waxaa lagu ogaaday waa algorithm xisaabaa la isku darsaday waxaa la ogaaday habdhaqankaaga waxaa la ogaaday meesha aad socoto waxaa la ogaaday IP addresska aad ka soo galaysa khadka waxaa la ogaaday raadraacagaa la hayaa cookies laga hayaa waxa laga hayaa waxyaabaha daawatay waxa laga hayaa faalooyin aad bixiday waxa laga hayaa gahi aad soo qorto qosla waxa soo dhan inta la isku duubtay ahadowti waxa lagu soo sameeyay xayeysiin adiga lagu talay la talin adiga lagu talay ama waxa loo yaqaano video recommendation Facebook adoo iska socdo waliga maaratay wax dhacay oo markaa lagu tusayo maxaa yeelay waxaasi waxay ka dhaceen ama waxaa ka faalooday ama waxaa falanqeeyey dad adiga bulshadaada ka tirsan ama dad aad la socoto saaxiibada ah ama dad ku nool deegaanka aad ku nooshahay ee locationkaaga lala socdaa gyroscope iyo waxa shaqaysanaya accelerometer xaad kala socotaa libaax ama libaaxad algorithm waa waxa maamula ababkan website-yadan programyadan database-yadan iyo maalin walba waxa raadraaca your online identity ama aqoonsigaaga digitalka ah ee online-ka ah waxa maamulaya waxa uu ku soo bandhigayo waa algorithm marka maanta waxaan falanqaynaynaa waa maxay ama wama adraaka algorithm horta yaasa alifay qof islaama ayaa alifay xalqada wax badan ka faa'iidi doontaa bal ila soco libaax ama libaaxad wama adraaka algorithm waa maxay algorithmku waa tilaabooyin xiriira ee loogu talagalay in lagu xalliyo cilad jirta ama in lagu fuliyo hawl marka si loo abuuro algorithm waxaa la sameeyaa in horta cilada decomposition lagu sameeyo muujada wax isla socda computational thinking waa la jarjaraya cilada cad ayaa loo kala dhigdhigayaa marka kadib ayaa waxa la sameeyaa waxyaabay iskaga mid yihiin in la fiiriyo cilada marka kadib ayaa waxa la fiirinayaa cilada inta muhiimka ahayn in inta laga saaro kaliya nuxurka dhuuxa lagala soo baxo marka kadib la sameeyo algorithmka wixii la rabay inuu qabto ayadoo markaa wax cad oo markaa tilaabooyin cad oo ku salaysan si algorithmka oo u shaqeeyo waa in tilmaamo cad la siiyaa si oo u shaqeeyo si sax ah marka algorithmku waa xog qoran step by step taako tilaabo taako iga daa cayaarta tilaabo algorithmka haddaan qeexno waxaan soo niri waa tilaabooyin taako u ah si isku xigtana inay u dhacaan ay shuruudu tahay si ay u xaliyaan cilad jirta ila soco haddaan tusaale ku siiyo maalin walba laga yaabo noloshaada inaad ogtahay ama hadda ka hor aad aragtay dadka cayaartooyda ah ee cayaara orodka weliba orodkaa sii kale midka ay ku jirto boodada weligaa geedka bood ma noqoto horta sideed u booddaa sidaad u booddo bal ii sheeg geedka bood ma tahay dadkii aqal soomaaliga ka boodi jiray ma ku jirtaa horta marka haddii tartan la qabto aqal soomaali in laga boodo ama in laga boodo meel ama geed in laga boodo tartanka haddii la qabto maxaa loo baahan yahay si geedka looga boodo qofku waa inuu horta xawaaraha soo kiciyaa soo ordaa markaa kadib oo bilaabaa inuu taako inuu soo qaado markaa kadib inuu bootin oo bilaabo markaa kadib inuu bootin dheer ee balacbalaca ee hadda kor oo uga saarmayo meesha u socdo inuu u qaado markaa kadib oo ku dago meeshii uu rabay ama meeshii laga rabay in uu markaa ku dago qofkaasi boodayaahi marka haddaan ku salayno olombikadoo kale qofka waxaa laga rabaa inta soo ordo inuu intaasoo mitir boodo ila soco marka waxaa la rabaa algorithm haddii loo qorayo in la sheego inta taakee la qaadayo si algorithmkan u shaqaynayo inta maray la boodayo waa in la sheegaa waa waxaad fahmi karta libaax ama libaax haddaad ahaa jirtay geed fuul ama geedka bood algorithmku kaama yeelayo waa la yiri buu yiri baa la yiri ama waxa loo yaqaano unambiguous waxaan la hubin algorithmka si uu u shaqeeyo waa in wax walba qorani ay yihiin kuwa la hubo kuwa aysan ku jirin qusacbalaad iyo maa loo malaynayay iyo waa sidaanay ahayd iyo saanaa la yiri iyo saanaan ka if iyo bad ma lahan wuxuu u baahan yahay step by step wax oo wax tilaabo cad la maraya waxaa la rabaa oo kale inuu xal oo soo saaro markii uu helo tilaabooyinkii la maray marka haddii aad siido waxyaabo iska khiyaaliya oon caddayn ama aan wax uu huba aysan ahayn wuxuu kuu soo saarayaa jawaab qaldan marka algorithm haddaan ka soo qaadno inaan ku salayno waxaan rabnaa inaan masawirno weji dhoo la caddaynaya kaba soo qaad
waxaa lagu yidhi marka hore waxaad samaysaa circle samee midab u yeel haye waxaad dul dhigtaa calaamad saan u qalloocan haye waa garnay markaa kadib 2 dhibic u yeel haye balse maada u sheegin meesha 2 dhibic la dhigayo xisaabta maada u sheegin oo maada dhihin positionkaas dhig maada dhihin booskaas dhig waliba waxaad ku salaysaa intaasoo xisaab maada sheegin xataa ballaca iyo dhudhunka iyo dheerarka iyo meesha laga dhigayo maxaa yeelay circle-kaani wuxuu leeyahay cabir oo ku salaysan yahay marka cabirka waa in loo sheega meesha laga dhigayo circle-ka indhaha hadda ma cadda maxaa yeelay markii la isku dayay in la sameeyo waa lagu soo celi waaye fiiri waxaa la yidhi circle samee haye meel iska dhig marka stepkaana saxan okay stepkaana waa sida saxda haddaa rabta algorithm ahaan inaad u qorto waa inaad iskaga qorin circle samee 2 indhood samee iyo waxaad samaysaa calaamad saan u xariiqan ee u eg af oo kale ma kaa yeelayo waxa waa la yidhi buu yidhi baa la yidhi kaama yeelayo algorithmku wuxuu u baahan yahay wax cad marka algorithmyo nuucyo badan ayaa jira algorithmku waxa uu yahay mid jira oo qabta shaqooyin kala duwan oo computerka u qabta waa xisaabe ogow asalkiisu aljabrowna ka yimid iyo logiga ogow hadday noqoto ababka ku jira mobilkaaga waxa ay sheegi karaan qaarkood sida kuwa heesaha streamingka ku sameeyo kale heesta aad doonayso in lagu cayaaro ayagoo isticmaalaya algorithm oo fuliyay afkaagu sida voice recognition oo kale ha ama wuxuu sameyn karaa inuu search engine inta kaaga baaro kuu soo saaro waxaad u dirsatay algorithmku meesha oo aad iyo aad u saameeyay waa xogta iyo geedi socodkeeda xogta laga hayo sida loo maamulayo waa waxa ay isticmaalaan social media platformka algorithmka isticmaalaana waa algorithm runtii ayaka u gaarahay qorteen ay u qoreen dad engineer ayaka u ah okay algorithmku wuxuu baari karaa isku aadi karaa daytada ayuu raadi karaa oo isku aadi karaa marka waxaa jira nuucyo badan oo daytada u raadiyo oo u kala saaro algorithmku okay 2 nuuc jirta marka waxaa jira linear oo ah saf ka soo mar taako si marka linear search oo sameeyo wuxuu sameeynaya haday yihiin ilaa intaasoo milyan oo shay ama saf ama wax la raadinayo wuxuu ka soo bilaabaya midka koowaad ilaa uu ka helo kii saxdahay hadii uu helo uu istaajinaya inuu wax baaro hadoo waayo uu ka gudbaya ka xigow tagaya marka waxa laga yaabaa inay tahay shaqo aad iyo aad u adag runtii halkaana laga soo bilaabay waxa loo baahnaa ka ugu dambeeya saana loo soo soconaya maanta dhawaa la soconaya saana loo soo soconaya ilaa laga helo kii la rabay marka linear search la dhawa waxa laga gudbi karin okay waxa jira mid binary search ee waxa taqaana data isku aadan oo la soo habeeyay oo tusaalo kale hadii aad rabtay inaad book ka baarto kale library-yada buugaagta la dhigahay waxa la isku aadiyaa si alphabetical order ama xarafka laga soo bilaabaa b lagu xijiyaa iyo wixii la mid marka kadib qofka raadinaya buugaas haduu ka bilaado kale m mathematics oo kale wuxuu sameeynaya inuu raadiyo marka kadib oo ka gudbo meesha eeda uu ka gudbaya shalfigeeda uu ka gudbaya marka kadib wuxuu imaanaya h ilaa n waxa u dhaxeeya waxa ku jira m waa ka ila soco meeshaas inta yimaado ayuu wuxuu raadinaya kii uu rabay marka koowaad waa uu ka gudbay kii kale waa ka gudbay kii waka markii saddexaad ayuu wuxuu hela buuga raadinaya qofku marka waxa la rabaa in wuxuu ay yihiin wax isku haboon hadii la rabo binary search in la sameeyo linear searchna waa waxaan isku aadanayn oo u baahan saf in laga maro binary search ayaa sahlan oo ka sahlan linear searchiga okay marka algorithm hadii lagu yiraahdo bal qeex qaabka uu shaqeeyo oo waxaan rabaa inaan xogaa aan picture fiican ka haysto flow chart wax la yiraahdo jira algorithmku wuxuu isticmaalaa ama flow chart ama wuxuu isticmaalaa pseudocode waa u imaan doona oo waa sida programmada u qoran yihiin balse hadii la rabo in logic si loo dhiso waa in horta sawirada inta la tago marka kadib steps-ka dhan masawir ahaan presentation lagu soo sameeyo waa in la yiraahdo waxa la rabaa kala tusaale qofku hadii uu jiro 17 sano driver license oo dalba kara in la qoraal raba algorithm okay see loo qoraya marka waa la bilaabaa programka waxa leeyahay start program haye userka waxaad weydiisaa ama qofka website-ka soo galay oo formka buuxinaya intuusan dalban driver license ama shatiga lagu wada baabuurta gaadiidka waxaad weydiisaa da'diisu haday ka yar tahay 17 sano ama da'diisu haday ka weyn tahay mujeda waa greater than haday ka weyn tahay 17 sano waa loo ogol yahay waaye yes marka waxaad u soo bandhigtaa userka print tuswaaye in loo ogol yahay in uu dalbado driver license ama shatiga baabuurta lagu wado hadii uu ka yar yahay oo yiraahdo 16 sano jira maxay leeyahay da'diisu meesha ku qoraya qofku maya u soo baxaysa oo fariintan u soo bixi waxa la leeyahay waxa tahay qof yar mana lagugu talagalin in aad dalbato driver license
marka kadib programka xir ma ka gudbi karo ilaa uu su'aashaas ka jawaabo marka waa sequence waa flow chart waxa la raacaya waay marka outputka programka maxaa waaye qofku haddii uu da'diisu ka weyn tahay more than 17 years of age qofku waa loo ogolaya application inuu buuxiyo oo hore u socdo da'diisa lagu salaynaya haddii uu ka yar yahana waa laga diidaya okay taasi waa isla garanay waxaa jira mid kale oo programmada ay isticmaalaan dadka programmerska ay u qoraan marka waxay isticmaalaan waxa la dhaho pseudocode-ku waa algorithmka qayb kamida oo qeexaya programmerska dadka ah inuu u ogolaado inay fahmaan waxa uu ka hadlaya algorithmkan luqaday rabtaha ku qornaato maxaa yeelay algorithmku waxa uu ku diyaar yahay siyaabo badan loo isticmaali karo ayaa loo adeegsan karaa tusaalihii hadda aan ku salaynay flow chartiga haddaan ku salayno pseudocode qofka markooda waxa la weydiinayaa da'diisa marka kadib haddii if way mogtahay waa statement haddii da'da qofku ay ka weyn tahay greater than hadda waxa la isticmaalay plain english awalna waxa la isticmaalay greater than calaamadii ahayd iyo less than iga dacayaarta okay hadday ka weyn tahay 17 waxaad u soo daabacdaa ama waxaad u soo bandhigtaa print waxa isticmaala luqado badan ay kamid tahay Pythonka qofka in loo ogol yahay inuu dalbado driver license alase waa shuruud waa condition haddii uu qofka uu ka yar yahay da'da waaye 17 sano hadduu qoro 16 aan jira waxaad u soo qortaa waxa tahay qof yar mana dalba karti driver license okay marka waa waxaad fahmi karto aan rabaa inaan kugu kala dhigdhigo marka waxaad dhigi kartaa algoritmka maanta aan iga daboodo libaax yaa soo alifay islaamka alifay islaamku wax badan oo IT-ga u taray ay ba ka bilaawdaan labaduba okay uga faa'iideyso sida saxda IT-ga uga faa'iideysan inaad si qaldan u isticmaasho marka the word algorithm ereyga la dhaho algorithm waxa uu ka yimid nin xisaabiyahan ahay ee magaciisa la yiraahdo Abu Abdullah Muhammad bin Musa al-Khawarizmi waa nin ku noolaa magaalada Baghdad iyo Basra culumadii hore ay artay cilmiga adduunyo iyo cilmi aakhiraba Baghdad ay jirtay Iraq maantana fiiri الله أكبر وهي خاوية على عروشها ويكون ديران العراق إلهي هأوصو عليو شرفتي waxa uu markaa tarjumay buugaag badan oo cilmiga sayniska ku qornaa oo ka soo turjumay luqadaha Greek iyo luqadda Hindida ee loo yaqaano Sanskrit luqadda Hindida ayaa loo yaqaanaa Sanskrit oo wax u beddelay Carabi waxa uu kala qoray buugaag badan ee xisaabaadka cilmiga dayaxa cilmiga geographiga ay cilmiga taariikhda ayuu ka qoray wax badan buugaagtii oo runtii ninkaasi fasiray ama uu soo alifay waxa lagu baran jiray jaamacada ku yaala Yurub markii al-Andalus oo islaamku lahaay mid sharaf leh oo ahay buugaagtii Khwarizmi qoray ayaa looga baran jiray halka bal u fiirso islaamku sharaf ayuu ku lahaa dunida ilaa haddana waa ku leeyahay bal gaala wuxuu rabaase inuu hoos u dhigo laakiin wa kalimatullahi hiya al-ulya waa sida inta raayga haato dacwadii meel walba waa ka galaysaa dacwadii okay marka ereyga la dhaho al-jabra waxa uu ka yimid buugaagta oo qoray al-Khawarizmi mid kamida magacooda magaciisana waa la xiriiriyaa al-Khawarizmi aljabrana waxa la yiraahdaa waa buugaagta oo qoray mid kamida magaca u bixiyay algoritmna waa al-Khawarizmi ayaduna ka timid la yiraahdaa marka Maxamed bin Musa al-Khawarizmi waa libax dhalay ninkaasi waa ninkii alifay algorithm ee hadda noloshaada saameyn weyn ku leh ab ayaad iska isticmaashaa waxaad ogtahay mala waa iska nugushahay maanta dhanna waxa lagu cayaarayaa sidii piano kale dabeecadaada iyo dareemadaada okay marka algorithmku laba nooc oo ku yimaada kuwa basic ah ka hadlayay ama waa bubble sort ama waa merge sort bal aan ku hormarno bubble sort waxa laga wadaa algorithmku soo u shaqeeyo waa inuu horta tilaabo qaada waanakii soo niri marka waxa la sameeyaa in marka koowaad la marsiyo baaska koowaad baaska labaad baaska saddexaad iyo baaska afar si loo marsiinaya 6 2 4 iyo 5 aan waxa rabnaa say u kala waaweyn isku xijino marka waxaan leenahay labo waa inay soo horeydaa okay baaski koowaad waa kan aan bilaawno marka waxaan leenahay 2 iyo 6 لحن قبل أبينا لبيه لحيا وين لحا وين أوكي لحيا هرمري فيلك وين هرمري أوفيرسو أوكي باسكي كوادواتي أفر يا لحيا وين لحا وين لحيا هرمري أفر وحي سوق شيء باسكي لبو بوتدا أوكي كجذب باسك أفراد هاي باسك سدحاد وحا وهاي لحيا أفر يا وين لحا وين باسك أفراد هاي لحيا شن يا وين أمرينا وحا وين لح مركا وحيا ما لقوا bubble to the right أو ميدك تأيو أسعدا أو كأوجد بيا أيو نقريا أيا لقوا marka aragto laba shay waxaad fiirinaysaa inaad kala bedesho ka weyn ayaa mar walba qaadanaysa adoo marka ascending order u socda balse ogow sidaani waa sida ugu xun ee algorithm loo qoro sida ka fiican ayaa waxay tahay divide and conquer kala qaybi ee gooni u gumayso sidii fircoon oo kale waja'ala ahlaha shij'a wuxuu ka kala dhigaa leeyri qayb sida oo u gumaysto dumarkooda waxa ka bilaabay ilaahay markiis waliba merge sort ayaa ka fiican
oo ah in la kala jajabiyo la kala qaybiyo oo waxa Soomaaliya lagu sameeyay divide and rule marka kadib ayaa waxa samaynaysaa kuwa ugu cusub ayaa isku adaadinaysaa ama kuwa marka aad rabto marka kadib ayaa waxa ku soo baxaya koox oo list aad samaysay marka kadib ayaa waxa samaynaysaa inaad code inta qorto aad ku xaliso arrinta uu ka fiican yahay bubble sortigi maxaa yeelay asaga wuxuu yahay more efficient qaybtan goonideeda u maamule qaybtan goonideeda san resultiga ku soo baxay marka waxa rabtaa IEUK inaad algorithm ahaan u samaydood ku samaydo merging waxaad qaadanay labada erayo koowaad kooxaad ka dhigtay labada xaraf oo koowaad aad qaadatay IEE kooxa ka dhigtay waa kala qaybida labada erayo u dambeeyay qaadatay kooxa ka dhigtay waxaad u samayday sorted ku samaynaysaa oo merge ah waxaan rabaa inaan ka bilaabo marka soo qaad laba ku jirta hal xaba qaado labadana ku jirta hal xaba qaado okay kooxdan kale waxa ku jira UK double waaye haye K soo qaado UK soo qaado marka final list order alphabetically marka waka IEKU marka maxaa la sameeyay divide and conquer and combine loo yaqaana kugu waalimayo runtii algorithm noocyo badan ah jira balse labadaani waa labada ay ka soo askumeen ka koowaad oo bubble sortiga waa laga tagay hadda merge sort ayaa loo badan yahay asaga ayayna ku saleeyaan wax walba logic ah ee marka lagu saleynayo go'aamada aad qaadatay iyo adiga iyo sida lagu dabagalayo marka libaax xataa u jeedo dunidan waxa maamulo waa algorithm nolosheena saameynta ugu weyn waxa ku leh waa algorithm marka is ilaali xogtaad gudbinayso ilaali waxyaabaha tirada badan ee marka adiga dareemayaashaada lagu kicinayo ama lagu soo bandhigayo xog walba indhahaaga lagu ma daawado waa la iska ilaaliyaa isticmaalka yaree aaladda adigu ha quudin waa sida aan hadda koor ku soo sheegay artificial intelligence waxa ka dhiga more intelligent waa data badan oo lagu quudiyay algorithmkeedii bartay waxyaabahan u baahannahay machine learning oo sameeyay marka ayuu nagu hurqiyay xog iyo information tira badan ee u baahnayn fadlan haddaad ka heshay cashirkan waxaad ku samaysaa falanqee ka faallo hoos adoo marna faaninaya ama na faduulinaya haddaan dhacda kaaga dhigana aan ku dhaho dhambaal hoos dhig adoona dhaliilaya ama na dhiirigelinaya dhambaal hoos dhig fadlan haddaad ka hesho muuqaalkan rugta hurbada riix gambaleelka wax walba lagu soo ridasay kugu soo ruclayaan mahadsanid mudane ama marwo waa ani adiga iyo xalqa kale iyo TT oo konton jirsaday mahadsanid